ismariwaaga siyaasadeed ee asalkiisu uu ka soo bilowday doorasho dib loogu doortay madaxweyne Madoobe 22kii bishii Agoosto ee sanadkan ayaa haatan wuxuu isku bedelay loolan siyaasadeed oo ay ku lug leeyihiin dawlado shisheeye kana socda gobolka Gado ee Soomaaliya. Gobolka Gado oo dhaca koonfurta Soomaaliya isla markaasina Soodina la Kenya ayaa haatan wajahaya dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waxaana gobolkaasi ku wada sugan ciidamada Kenya kuwa Itoobiya oo la tilmaamo inay kala taageeraan dawladda dhexe iyo Jubbaland oo isku haya siyaasadda gobolka. dhacdooyinka siyaasadeed ee sare u qaaday ku lug lahaanshaha wadamadaasi ee siyaasadda gobolka Gado ayaa in ciidamada Kenya ay shalay la wareegeen amniga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo loo diido inuu galo deegaano dhowr oo ku yaala gobolkaasi. Diidmadaasi ayuu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada Itoobiya oo tilmaamay inay adeegsanayso dawladda dhexe. Dhankooda ciidamada Itoobiya ayaa horaantii bishan la wareegay oo gacanta dawladda ku soo celisay degmooyinka Luuq, Balad Xaawi iyo Doolow oo Jubbaland ay ka talinaysay. Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa ceeb nasiib darro iyo ku tilmaamay in dawladaha shisheeye ay isku adeegsadaan siyaasadda Soomaaliya. waxaan dhihi karaa qof kasta oo mas'uul ah Soomaaliya ayaa iyo soolxumo ay ku tahay in systemkii dawladnimo ama systemkii maamul maxaan ku raadayay Jubbaland in lagu burburiyo maxaan ku raadayay qowle ajnabi oo waliba dhowr dalka dhibaatada iyo waxyaabaha ay ka geysteen ayaguna ay miiciyaan sidoo kale qowle kale ajnabi oo maanta la leeyahay amnigii dadkii mas'uuliyiinta Jubbaland waxaa sugaya ciidamada Kenya marka waa aan daro si aan u cabiro dareenkii aan Kenya qaran walaalo arrinkaana eedeeda waxa qaadanayo uuna xisaabtamaya insha Allah ta'ala isfahan lagu weydiin doona madaxda dowladda federaalka. Kenya ayaa hore waxay si cad u sheegtay inay taageersan tahay maamulka madaxweyne Madoobe waxaana maalin ka hor ciidamo hor la ay soo tubin xadka Soomaaliya iyo Kenya. Senator Nadiir oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in shacabka Gado ay isku tashadeen isla markaasina aysan jirin loolan ciidan oo ka jira gobolkaasi mucaaradkuna ay hurinayaan colaad siyaasadeed. Ethiopian ayaa maaragtay faragelin ku haya dawladda Soomaaliya ayaa maaragtay maxaan ku yiraahdaa ka gaabistay xaaladda maamulka Jubbaland waxa maamulka Jubbaland maxaan ku yiraahdaa madaxweyne Farmaajo wuxuu ka soo bixi waayay yiraahdaa mas'uuliyadiisii ma u malaynayo in waxaas oo dhan markaa waxaan isleeyahay waxaas oo dhan waxay tahay wax oo dariiq khaldan oo ay marayaan waxba kama jiraan warkaasi dadkaasi way tashteen waxayna isku duubnideena sameeyeen shacab doonaya in dawladoodii la shaqeeyaan bay noqdeen dawladii dhexe iyo wasaaradii arrimaha gudaha shacabkii ka tirsanaa ninkaas maxaan ku dhahaa odayga ciidamadii uu meesha ku haystay maaragtay qabiilka ku dhisnaa oo ka baxay qabiilnimadii oo u gudbay qaran u gudbay. haddaba maxay tahay danta fargelinta siyaasadda Soomaaliya ee Kenya iyo Itoobiya maxaa cawaaqib xumo ka dhalan kara su'aalo kale waxaan weydiiyay Maxamed Xaadir Nuur oo ah falanqeeyo siyaasadeed. waxa soo dadajinaya waxay tahay dawladda Itoobiya oo runtii u ruwaayadeynaysa dawladda Soomaaliya wax kaliya meesha ka muuqda waxay tahay dawladda Itoobiya oo ognahay wadan xoog badan ciidamo adag la waayo wax walba way ka suuragali kartaa waxaan aaminsanahay in haddii ugu talagasho in ay macala Kismaayo iyo Kenyaanka ay faragelisay ay wax badan ka qaban kartaa laakiin danta ugu jirto waxay tahay saan hore kugu sheegay waxaan lama rabo in dal xasiloon oo deganaansho la sameeyo waxa weeye waa in dalka Soomaaliya goboladiisa lagu ciyaaro qolana xagga ka soo gasho dhaaba anaga inta hayno ayagana inta ay ka soo galanayaan anaga inta hayno waana arrimihii Afrikaanka ka dhici jiray sida Burundi iyo maaragtay Rwanda iyo maaragtay Congo ciidamadii shay Afrikaanka gali jiray dhaqankiisa weli way ka sii daran tahay midaan oo Itoobiya oo Soomaaliya sheeganaysa Kenya Soomaaliya sheeganaysa waxa isku haysta marka waxa waa lahaanshaha dalka waay Soomaaliya soo fahmaan waay haddii lahaanshaheeda ay sheeganaysa dhulka Soomaalida. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa haatan ku sugan magaalada Nairobi ee Kenya waxaana dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay sheegaan in haddii xaalku sidan sii ahaa uu khilaaf siyaasadeed ka dhex abuurmi karo wadamada Kenya iyo Itoobiya.